halkan idiin muuqata waa xabsiga dhexe xamar oo ay ku xiran yihiin in ka badan 2,000 oo qof waana halka ay ku xiran yihiin dambiilayaasha ugu waaweyn ee qaraxyada iyo dilalka ka geysta magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka tirsan qawaariijta kooxda Al-Shabaab qaarkood waa kuwa la xukumay oo dil ku xukuman isla markaana sugaya saxiixa madaxweynaha oo qura halka qaar kalena ay ku xukuman yihiin xabsi daa'im xabsigan sidoo kale dadka 2,000 kor u dhaafay ku jira waxa kamid ah dad ayagana sidoo kale dambiye adag geystay oo dil ay kamid yihiin wana halka ay ku xiran yihiin ninkii gubay xaaskiisii iyo taliyihii dilay Abuukar Kaabax taliyihii saldhigga degmada Howlwadaag qoslay ninka la jiray iyo rag kale oo badan oo dambiye waaweyn lagu soo eeday ayaa ku xiran maanta waxa isku soo sawray gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo sheegay inay dhisi doonaan xabsigan waa mid qadiimi ah oo muddo aad u dheer ayuu dhisnaa waxaana la sheegaa dhismihiisa in ay dhistay dawladdii Boortaqiiska waqti aad u sii horeeyay oo xilliga gumeystaha meelahaas marka dhismihiisa waa dhismo qadiimi ah gudoomiyaha wuxuu sheegay maanta inay dib u dhisayaan balse dhismaha dawladda inta badan waa un rinjiisa oo rinjibe maraysa marka rinjiintii wuxuu ka dhigayaa umaleynaya inay dhisayaan halkani dadka aad ciriir ugu tahay ma qaado maxaabiista ku jirto balse ma haysta dawladda meel kale oo ay geyso ragani dambiyada waaweyn galay oo ay ugu horeeyaan kuwa ka tirsan qawaariijta Al-Shabaab oo iyagu meel aan halkaan ahayn aysan celin karin waxa jira xabsi kale oo asluubta ay dhiseen isla markaana laga dhisay ex-control afgooye magaalada Muqdisho oo ah xabsi aad u weyn balse kaasi Al-Shabaab lama geyn kara maadaama magaalada Muqdisho banaankeeda ku yaalo maxaabiis Al-Shabaab lagu xiri karo waxa lagu xiraa ciyaal weerarada iyo tuugada iyo waxyaabaha macnaha dadka dambiyada aan saas waaweyn aan gelin waxaan rajaynaynaa wixii awoodeena iyo karaankeenna si degdeg ah in wax looga qaban doono duqeena aan kula laaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo hay'adaha kale oo dawladana waxaan rajaynaynaa in xabsiga kuwa xabsiga calaaqada la leh iyo kuwa la lahayn intaba in iyaga laftirkoodu ay wax badan ay wax allaale wixii ay la qaban karaan maxaabiista meeshan ku jirta iyo dadka gacanta ku haya intaba in lala qabto aad ayay muhiim u tahay dadkaanu dabcan waa xukun sugayaal qaar waa xukuman yihiin qaar waa isku jiraan dad isku jira waa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maxkamadahuna inay xukuumada iyo wixii daaha laftirkooda ay dadajiyaan annaguna hadduu Ilaahay yiraahdo gobolka Banaadir haddaan nahay aad iyo aad ayaan u tixgeli doonaa baahiyaha halkan hadda maanta aan ku soo aragnay si degdeg ah ayaana looga jawaabi doonaa